garaaceen wax furay waayeen marka gabadha ay saaxiibaa ahaayeen oo dariskooda ahayd ayay ku garaaceen ay aadeen hooyo ma aragta maya hooyo gurigay joogtaa maxaa anaaba kasoo tegay dhada mar dhawaan kasoo tegay hooyo tv daawanis gurigana oga soo tegay maya hooyo ma joogta albaabka waan garaacnay mana la furaayo waa guduguuna xiran yahay daaqadii way imaaday daaqada dhinaceeda la fiiriyo wax ka shanqaraaya ma jirto furo ma lahaayo waxaa la wacay ninkeedii la wacay saaxiibkeeda la wacay saaxiibkeeda markii la wacay waxaa la dhahay maka warantaa xaaskaaga maka warantaa heblaay maka warantaa magaceeda mayuu dhahay maka warramiyuu dhahay maxaa guriga soo ma joogta maya ma joogto waaye أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعلى عليك دمانتنا وعيد السلامة هلكا إيقا داوانا سوا أم سمير أوفيشال بديت جنالك إيقا داوكو عصبتاي سبسكرايب لايك كومنت انت بإيسار إن شاء الله تعالى لايك تيو كومنتيشن سبسكرايب أدي وحبا كان بدي بس لايك يعني دير قلني إيتاي إن شاء الله تعالى دير قلني إيتاي كومنتيدينا quruxda badan maxaan ku dhahay laagta ii soo saaraysan aad idinka mahadcelinayaa marka subscribe inta ii saartaan u baahanahay inta hadda joogay in ka badan bina gaarsiisana u baahanahay insha Allah taala adinka ayaan wax idinku ahay Soomaali baa hormar gaarsiistaa ma taqaanteen walaali qofka walaalkaaga ah hadii aad dhiirigelisid hore u soconaya ma fahantay dadku xumaanta sheegayeen iyo maxaan ku dhahay wax xun sheegayeen ilaahay maxaan ku dhahay wanaagga iyo samaanta ha tuso ilaahay wanaagga iyo wadada toosan iyo wax wanaagsan inay ku hadlaan ilaahay oga baraya iyo waxan xun ay ku hadlaan inuu ilaahay ka qabto ummadda inta halaysan Allah soo hanuuniyo marka insha Allah taala maanta maxay idin wada maanta waxay idin wada qisa aad u xanuun badan insha Allah taala oo ku dhacday reer maxaan ku dhahay nin cadaan ah iyo naag cadaan oo isqabaan oo maxaan ku dhahay magaalada aan deganahay ila degan insha Allah taala magaalada aan deganahay ila degiin qisadana waxay ku bilaabanaysaa saan ninka waa nin cadaan ah naagtana waa dadkan maxaan ku dhahay ajaanibta oo maxaan ku dhahay wadankan Britishka u dhashtay waaye marka waxa maalmaha kamid ah waxa dhacday horta ilmo waxay haastaan laba wiil ay haastaan marka gaaladan waxa waaye ayaga dhaqankooda waxa waaye markay ilmo badanaa before ay ilmo isku dhalnay isguursadaan qaarna waxay isguursadaan markay ilmaha isku dhalaan kadib inta ka horeysa waxay isla ahaanayaan boyfriend iyo girlfriend isku ahaanayaan waa dhaqanka ayaga haastaan marka wallahi ninkan iyo naagtan may isqabin laakiinse maxaan ku dhahay way isla noolaayeen laba ilmoodna way haysteen laakiin boyfriend iyo girlfriend isla ahaayeen laakiin maxaan ku dhahay way isguursan rabeen sida qisada aan ku maqlay marka maalmaha kamid ah waxa dhacday ninkan wuxuu u soo islaami doonaa naagtiisa oo dhimatay markay naagtiisa dhimatay ayuu soo islaami doonaa qisadana waxay ku bilaabanaysaa saan habeenaha kamid ah ayaa waxay ahayd maalin axad ahayd sabti ahayd oo axad ay soo galeysay ahayd marka waxay leeyihiin meel garden oo weyn oo lagu caweeyo oo maxaan ku dhahay ay iskaga cabaan maxaan ku dhahay qamriga iyo waxyaalaha iskaga cabaan ay leeyihiin marka galabtaas dhan waxay ku baashaalayeen maxaan ku dhahay qamri ku cabaayeen ayaga iyo saaxiibadooda iyo maxaan ku dhahay iskugu imaadeen meesha gardenkooda adi meeshaas lagu baashaalay galabtaas dhan qamriga lagu cabay maxaan ku dhahay lagu caweeyay ilaa iyo waxa lagu gaaray 8 saac oo habeenimo meelahaas lagu gaaray 8 saac habeenimo markii lagu gaaray adi qooxdi kaleeto oo saaxiibadooda ahaa way ka galbadeen ayaga marka labadoodina way iska seexdeen oo maxaan ku dhahay gurigoodii ay galeen way seexdeen waagi markaa bariyay adi suba inta maxaan ku dhahay waagi markuu bariyay subaxda soo toostay ay waxay la soo toostay xaaskiisi madax xanuun iyo waxaas la soo toostay way baxay ilmaha markii iskuulka la geeyaa ilmihii bay maxaan ku dhahay diyaarisay asigana laakiin shaqo uu kala hawshan nin shaqo aaday uu ahaa uu iska baxay shaqo aaday 8 o'clock meelahaas markay ahayd ayada ilmihii diyaarisay markay diyaarisay waxay u kaxaysay iskuulka markay aageysay way ka soo laabatay GB-ga balansatay wacatay GB-ga markay aaday ay wacday appointment yaa loo sameeyay marka GB-ga markay aaday appointment before ay aadan horta ay wacatay appointment yaa loo sameeyay appointment-ga markii loo sameeyay waxa la dhahay imaam waa la dhahay bas adi madax xanuun iyo inta laga haayay wixii meeshii laga hayay sheegatay marka insha Allah taala adi wax bay daaweyn wax bay soo siiyeen guriga iska ka soo laabatay
maray ahayd 1 o'clock meelahaas ay guriga kusoo laabatay. markay guriga kusoo laabatay gurigeeday gashay way seexatay gurigeeday gashay hooseena kasoo xiratay fuadi furaha hoose oo rigataan dadka meesha joogo furaha hoose looga riganayaa way seexatay fadhigay gashay way seexatay xoogaho yare waxaa la TV iska daawatay sida aan ku maqlay gabadha markaa u imaaday oo saaxiibo ay yihiin oo ka tagi doonto waxay dhahday iyadoo TV daawanaysaan ka tagay dhahday TV iyadoo daawanaysaan ka tagay aniga waan iskaga tagay gurigeygaan aaday bas abaayadan adi way iska seexatay markay iska seexatay adi ilaa iyo saacadii markii la gaaray 3 o'clock half 3:20 adi half 3 meela ilaa 3:20 ilmihii waqtiga iskuulka laga soo kaxeynay ilmaha waxaa ka soo baxay ilma qaar waxay ka soo baxaan 3:15 3 o'clock ilmaha 2:50 ka soo baxaa ilmaha marka ayadaa dooni jirtay ilmaha marka midaa yararoon midna waxoogaho adigu yar yahay mid kaligiis uu imaan kara oo waa mid yararoon oo kasoo horbaxa iskuulka oo 2:50 kasoo horbaxa wuxuu sameeyay marka ilmihii wax kasoo doonay mise hooyadood ma imaanin markuu iska soo baxay gurigu imaaday albaabku garaacay naatin albaabku wax furo waay albaabku garaacay wax furo waay wiilka kale oo ka yaraaba haddana imaaday albaabkii ay garaacay wax furay waayeen marka gabadha ay saaxiibaa ahaayeen oo dariskooda ahayd ayay ku garaaceen ay aadeen hooyo ma aragtay maya hooyo gurigay joogtaa maxaa anaaba kasoo tegay dhahda mar dhawaan kasoo tegay hooyo TV daawanis gurigana oga soo tegay maya hooyo ma joogta albaabku waan garaacnay mana la furaayo waa guduguuna xiran yahay daaqadii way imaaday daaqadii dhinaceeda la fiiriyo wax ka shanqaraaya ma jirto furo ma lahaayo waxaa la wacay ninkeedii la wacay saaxiibkeeda la wacay saaxiibkeeda markii la wacay waxaa la dhahay ma ka warantaa xaaskaaga ma ka warantaa heblaay ma ka warantaa magaceeda mayuu dhahay ma ka warramiyuu dhahay maxaa guriga soo ma joogto maya ma joogto waaye okay adiga goormaa kugu dambeysay ani waxaa igu dambeysay 2 o'clock meelahaas igu dambeysay iyadoo TV daawanaysa igu dambeysay waan kasoo tagay gurigeygan kasoo aaday hay telefonkeedii la wacay marka telefonka wuu dhacayaa wax qabanaayo ma jirto wax ka aan sagareynaa telefonka ma jirto telefonka la wacay ma dhac wuu dhaca wax qabanaayo telefonka la wacay wuu dhaca wax qabanaayo ma jirto sidii markii adi ilaa iyo la gaaray 4 o'clock oo la sugay oo wax imaana iyo wax kale tan la waayay ayaa waxaa la wacay ambalaaskii booliska la wacay ambalaaskii booliska markii la wacay ambalaaskii booliska imaaday albaabkii la jibiyay ninkeedana shaqada uu ka soo baxay isagana wuu imaaday booliskii waa laakiin ambalaasta ka hor imaaday ninkeeda wuu dambeeyay albaabkii la jibiyay albaabkii markii la jibiyay waxaa la dhahay gudaha u galeen gudihii markay galeen naagtii waxay u imaadeen oo jiifto way fiiriyeen way gadgadiyeen wax shanqar iyo wax kala dhaqaaqay ma jirtay bahal marka waxaa jirta wadnaha dadka laga saaro oo maxaan ku dhahay inuu qofka nooli in wadnaha istaagin kara ogaanay shaqar dhan ma lahan way yaabeen marka dan booliska uu soo baxay waxay dhaheen marka waxaan ku dhahay ambalaaska uu soo baxay waxay dhaheen qofkan maxaan ku dhahay ma dhaqaaqayo inuu dhintaan uga shakisanahay isbitaalkan geynayna waan ka xeenaynaa ninkeedii naxdinaan ku dhahay wuu imaaday maxaa ku dhacay gudihii markuu galay ambalaaska gudihii galay booliska soo qabteen waa la baarayaa waxaa la dhahay yaana gelinaan le gurigan waa loo diiday adii ninkan guriga gala hadda meeshan qof keligiis oo guri joogay wuu dhintay haddii la dhahaa qofkii markaas guriga kula nool ayaa maxaan ku dhahay baaritaana la sameynaa qofka ugu dambeeyaa la wareysanaa dadkii yaa xalayt intay ugu dambeysay ninka adiga goorma guri ka baxday wareysi adi la sameynaa meeshan bes ninkii waa loo diiday guriga inuu gala naagta waa la qaaday isbitaalka la geeyey adi inay dhimato waa la xaqiijiyey markii la xaqiijiyey inay dhimato ninkii naxdinaan ku dhahay inuu waashto xira oga dhineed ninkii naxdinaan ku dhahay maryuhu maxaan ku dhahay oo inuu afka furtay wax aamusiyey wax kaleetaa la waayay bes adi naagta way dhimataa lee ka samaraa la dhahay waxaa la sameeyey habeenkii adi waagi markuu bariyey guriguu imaaday ilmihii horta waxaa la geeyey hooyadeed baa nool guriga hooyadeedaa la geeyey ilmihii waagi markuu bariyey wuxuu dhahay boorse iyo waxyaalo ilmaha ay leeyihin meesha ka qaaday gurigan wuxuu dhahay ma degnaan kara aniga waa ka guurayaa wuxuu dhahay furihii wuxuu ku wareejiyey qolada kansalka ku wareejiyey ilmihii adiga isaga meesha way ka guureen marka waxaa dhacday ninka taariikhda ku dhacday marka ninka waxay tahay habeenkii markuu saaxdo wuxuu arkayaa maxaan ku dhahay naagtiisi ayuu ku riyoonayaa wuu naxay habeen walba waxaasaan arkaa adiga wuxuu sameeyey horta aniga hor dhicin horta intuu habeen walba waxaas uu arkay nin maxaan ku dhahay Pakistan oo dariskiisa jira ninka Pakistanka uu tagay albaabku garaacay oo islaan
wuxuu ku dhahay waxaan rabaa uu dhahay inaan arrimo kaa wareystaan rabaa. Haye niyahow wuxuu dhahay aniga until naagteyda ay dhimatay ilaa iyo hadda naagteyda waxaa laga joogaa uu dhahay 15 beri adi ilaa iyo 20 beri ku dhow dhahay intay duugan tahay. habeen walbana way imaadaa uu dhahay. habeen walbana ha ii imaadee wuxuu dhimay iyadoo cabaadeys oo nolol xun oo sahlaneen ku jirta ay imaadaa uu dhahay. haye sidee ku aragtaa, maxaa ku ogaatay? marka indhaha isku qabato habeenka dhahaba seexa waan arkaayo uu dhahay. haye nolol sidee ay ku jirtay, maxaa lagu sameynaa, way un cabaadeysaa. markaan aan dhahaba wixiina shuceeca iga saaran, laakiin inay ooynays ee cabaadeys ee nolol xun ku jirto waan arkaa uu dhahay. bes marka wuxuu dhahay marka noloshaas ay ku jirto aan shaki iga jirto uu dhahay. marka wuxuu dhahay aniga diinta kiristaankan hastaa uu dhahay, adiga muslim baa tahay uu dhahay. marka waxaan ka rabaa inaan ku wareysto uu dhahay anaga diintanada waxa aan sameyno iyo waxa adinka samaysan inaan wareysto uu dhahay waxaan rabaa uu dhahay. aniga waxaan sameeyaa uu dhahay waan cunaa, waan cabaa, waan seexdaa, waan soo toostaa, shaqaan aadaa, qamriyaan cabaa axaddi iyo maxaan ku dhahay sabtidii, waan iska baashaalaa. adinka maxaa qabateen? ninka muslimka ah wuxuu dhahay anaga qamri ma cabnuu dhahay, agtaanada xaaraan bay ka tahay uu dhahay. muxuu dhahay waan dukanaa uu dhahay, maalinta 5 jeer aan dukanaa, ilaahan ka cabsanaa uu dhahay, allah anagaan ka cabsanaa uu dhahay. bisha soonka sanad markii la gaarana bil waxaa jirta oo la soomo uu dhahay, ilaahay loo soomo uu dhahay. salaadaha anaga waan dukanaa uu dhahay, ilaaha anagaan ka cabsanaa uu dhahay. maalinta 5 jeerna waan dukanaa uu dhahay. okay masaas ba ahaa. okay aniga waxaan u baahan uu dhahay marka noloshan ani aan ku jiro inaan kasoo baxo oo noloshan ay kusoo biiro sidaan u baahan uu dhahay. bes markuu sidaas dhaw wuxuu dhahay miyaan ku qasbayaa uu dhahay aniga waxaan ku qasbaya miyaa uu dhahay. okay noloshan aad soo gashay ma xumee, noloshan miyaa mid aan kugu qasbaya miyaa? may uu dhahay anigaa kiskayga usoo gelaya uu dhahay, anaa diyaar u ah. bes waayo wuxuu dhahay aniga marqaatiyaan ku kaxaynayaa, masaajidaan ku geynayaa, namari uu dhahay masaajidaan ku geyna oo lagugu islaaminaya. wuu kaxeeyey ninkii masaajidku geeyey. ninkan taariikhdaas qabsatay asigaan iniga sheekeynayo wuu iniga sheekeynaa ka dhageysta. adi ninkii sida uu ninkan ugu sheekeeyey taariikhdii soo martay iyo wixii ku dhaco uga sheekeeyey. wuxuu dhahay anigaa diyaar u islaamnimada inaan qaato, anigaan maxaa ku dhahay islaamay oo islaamnimada inaan gala diyaar u dhahay. noloshaas mugdigeeda ma rabo, noloshaas inaan kasoo baxaan diyaar u dhahay. ninkii shahaadaha loo qabtay waa la islaamiyey. maxaan ku dhahay islaamnimadii uu soo galay, aad u farxay. markaasuu ninkana dariskiisu ahaa aad ugu mahadceliyey. marka wuxuu dhahay waxaa kasoo wareegatay bilaa kasoo wareegatay. marka bil markay kasoo wareegatay ninkii asiga isku imaadeen, wuu wareystay ka waran buu dhahay hadda nolosha aad ku jirtid aadaan ugu faraxsan uu dhahay, aaday nolosheeda isku bedesho uu dhahay, aadaan ugu faraxsan uu dhahay noloshan aan ku jiro. tii horena ilaahay baa iga soo bixiyey, ilaahay iga soo bixiyaan kuma hadiyaa. muxuu ku dhahay taasna waxaa ilaahay iigu tusuu dhahay xaaskayga markay dhimatay ayaa maxaan ku dhahay wadadan ilaahay ii aftiimiyuu dhahay. marka wuxuu dhahay aadan ugu faraxsan uu dhahay. markaas saxaabay diinteena muslimka islaamka aan haysan, diinta islaamka waa diin aad u nasteexa badan, waa diin aad u macaan badan. ilaahay maxaan ku dhahay inta aan diinta haysanin allah ku soo hagaajiyo, inta diinta muslimka haysato oo maxaan ku dhahay aan ku dhaqmaynin oo waxyaalo qaldan iyo waxyaalo xun ku dhaqmayaan oo diinta islaamkan afka ka sheeganayaan, ilaahay ayagana ha ku soo hadeeyo oo wadada toosan oo saxda allah tuso. kuwa maxaan ku dhahay diinta gaalada haystan ilaahay waxaan uga baryaa inuu wadada toosan oo islaamnimada ilaahay soo geliyo. marka insha Allah taala qisadeena halkaas ay ku eg tahay. ilaahay kuwa waxaan ku dhahay kuwaana qaata Allah naga dhigo. insha Allah taala khayr badan ayaan rajeynayaa. channelkayga hadaa daawatina subscribe iyo like iyo comment insha Allah intaba ii saar walaalahayga qaaliga aad u mahadsantihiin. khayr badan ayaan rajeynayaa.